haddii aad joogto Ankara iyo nawaaxigeeda oo kamid ah magaalooyinka Turkiga halkan waxa diyaar kuugu ah timajare ay Soomaali leedahay haddii aadan aqoonin luqadda wadankan oo laga yaabo in inta timajare tagto aad tiraahdo move tintana hadii aad dhalinyarada bidarkaaga yeelo taas waad ka gudbaysaa hadda sababtoo ah waxaad arkaysaa wajiyada quruxda badan ee tinta jaraya oo Soomaali iyo ajaanib isugu jira sida daraadeed halkan ku soo hiro waxaad helaysaa adeeg hufan iyo timajaris qurux badan marka loo eego qaabka lagu adeegayo waxaan joognaa timajaraha Ankara ee Kaslay dadka maaragtay dadweynaha Soomaalida ee Ankara degan waxaan u sheegaynaa inay ku soo dhawaadaan barnaamijkan cusub ee dhalinyarada xirfadda leh ee high skills-ka ah ee barnaamijkooda maaragtay ka xaqabtirayo luqadda Soomaaliga adigoo dhan walba xarbtid ee maaragtay aad inta u sheegato ku sameynayaan meeshani hadda markaan imid waxyaalo aad u fara badan aan ka helay oo maaragtay ay kamid yihiin in maaragtay timaha maaragtay si qurxoon intaan maaragtay qurbaha ku noolaa Europe iyo America inta arkay waligay ma arkin sida maaragtay quruxda badan ee dhalinyarada maaragtay high skills-ka u yihiin waxaan arki jiray in maaragtay qofka inta ii jaro oo maaragtay timiyo kala dheer aan meesha ka baxo anoo maaragtay maalinta labaad inta u soo noqdo aan iraado warsaan maxay ahayd laakiin barnaamijkan meeshan aan ku arkay wuxuu yahay adoo qurxoon oo maaragtay aad maqsuud tahay qofkii maaragtay ku leeyahay maxaa ka dhiman aad maaragtay ku maqsuudaysid kadibna aad kaga tagaysid marka dhalinyarada iyo maaragtay odayaasha degan Ankara waxaan leeyahay ku soo dhawaada wiilashiina maaragtay idinkay idin baahan yihiin luqadiina maaragtay idinku hagarbaxayaan uma baahnid in lagu turjumo uma baahnid in maaragtay adiga aad saad raali ka ahayn maaragtay lagu sameeyo waxaad helaysaa wax walba adiga aad dalbatid haday tahay timajarada haday tahay garjarista haday tahay daawamarista dhan walba adoo habiya aad ka tagi doontaa ku soo dhawaada barnaamijkani walaalaha ay wataan waana wiilkiina waa dhalinyaradiina waa wiilashiina insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ani muddo badan ayaan ku noolahay Ankara bas baahi weyn aad u weyn ayaa jirta Ankara sida xagga timajaraha xagga haday noqoto waxyaalo badan marka Soomaalida waxaan ku baraarujinayaa in la furo timajara cusub oo rag dhalinyaro xil saaray ay u fureen ummadooda Soomaaliyeed baahida inay ka baxaan maadaama ay u badan yihiin dadka Soomaalida Turkida soo galay in luqadda Turkiga ay aqoonin marka marar badan ayaa jirta qofka sidoo raba aan loogu jareynin maadaama qofka Turkiga asaga ay isfahmeenin marka hadda baahidii waa laga gudbay soo dhawaada ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ka joogto Turkiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليه الصومالي المانتو حن أشيغيا إن ماشان أوجو إن أشيغو تمجرع عصب أو نكويا لو كسلاي مقايدها صومالي أكتر كويا لا وحن إذن شيغيا وحولبو صارت الدلف كاجي إن نكون سمين كرو وحن كسو شقي ودمك على بدن سدا سعودي يمن هرجيسا maantana Turkiga jooga waxaan idin leeyahay waa soo booqan kartaan waa tijaabin kartaa tijaab ahaan waa lacag laan hada u baahato waxaan ku joogo walaalaha Soomaaliyeed anagoo dhan Soomaali aan nahay welcome to Open Hadith timajaru waxa uu ka kooban yahay qaybo kala duwan oo loogu tala galay dadka sida ay u kala sareeyaan in loogu jaro qaybta waa VIP-da buuq male dadku kuma badnasan ula jeedo because timajaru dhan buuq ma lahan sida daraadeed iyadana halkan ku soo dhawaada waa qayb kale oo VIP oo loogu tala galay dadka mudan in loogu jaro VIP-da sidaad arkaysaan aad iyo aad ayaa lagu soo dhaweeyay waa meel sharaf badan oo dadkiina Soomaalida joogan ku soo dhawaada halka waxa timo ku jiraya Soomaali weeye dadkiina weeye dadkii Soomaali oo mataqaana tababar fiican soo qaatay ma sha Allah tabarakallah ilaahay idin xifdiyo ilaahay meeshiina ka dhigo meel oo u dhaxeeya in oo dadadan luqadooda garanayeen inaad ka jarato iyo dadka Soomaalida ku jiraan ma sha Allah dadka oo macnaha maxuu ah luqadooda aan garanaynin iyo dadka walaalahayga Soomaaliyeed isku mid ma ahbo oo mataqaana difference u dhaxeeyo بسم الله الرحمن الرحيم meeshan u jeedaan waa Afra Cofer waxa furay aniga nin jaamac Abdi Jaacal la dhaho waxaana u furnay muxuu ku yaalaa location ku yaalana waa meesha centerka u ah Soomaalida Kaslay maqaaxida Soomaalida Soomaali Sufrasa iyo Saab ku yaalaa agtiisa iyo Saab korkeeda waxaana u furnay baahi jirtaan aragnay durfo jirto aragnay maalin walba qof aabo adeer ilmo yar oo timi laga ciyaarayo because dadkii waxa jirta body language iska jirta luqadii fahmin sababtaas baahida jirta waxaasna maxaa dadkiina ku soo kordhin kartaan
baahida jirta awgeed dadka uu soo kordhinay qof luuqadaada ku hadlaaya oo saarabta ku adeeg war xaggana iga dheer xagga iga inaan dadkii wax ku soo kordhino darteeda u furnay alxamdulillah haddana feedback dadkii Soomaalida dhan dad badan baa meesha waan loo duceynaya insha Allah inta ka badan waxaan rajeynayaa inay hore u socoto dadka aan meesha jooga khibradooda hadaan ka hadlo ani ahaan dadka oo aan garanay ismacaan u garanay nin Ismaaciil ay dhahan iyo nin Yaasiin dhahan iyo Cadrus iyo Tawako ninkan waa nin Ethiopian ah saddexda kalena Soomaali waaye khibradooda waxay ilaa aan garanayay muddo dhowr iyo 10 sano gaartay ninka Ismaaciil lahay ana customerka aan jiray ka jiray meelo badan ku soo jiray sida Xamar Gaalkacyo ilaa intaas oo dhan ku soo jiray waa dad hadda aan Soomaaliya dhawaan ka keenay marka meesha min kadib aan Soomaaliya ka keenay si ay u noqoto wixii quality ay u noqoto ay u noqon meel qurux badan iyo qof aan timiya ana jiray aqoon marka dadkaas wadanka Turkiga Soomaaliya ka keenay marka waxaan rajeynayaa inay baahidii boqolka boqol ha qabtirayaan insha Allah